saxaafadeed uu hadda soo saaray ururka sinaantii cadaaladda ee sime ayaa baaq u diray bulshada afka Soomaaliga ku hadasha sida Djibouti, Somaliland, dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee DDSI, ummadda Soomaaliyeed ee degan waqooyi bari ee Kenya, dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka sida Puntland, Galmudug, maamulka Koonfurta Galbeed iyo Jubbaland. haddaba dawladaha iyo maamulada kor ku xusan waxa uu ururka cadaaladda iyo sinaanta ee sime ugu baaqay sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen baabiinta dhaqanka falka xun ee haybsooca dhaqankaasi oo ah dhaqan ay ummadda Soomaaliyeed soo dugaashanaysay muddo qarniyaal ah isla markaasina ku noqday dhibaato noloshooda oo dhan saameysay bulsho kamid ah bulshada Soomaaliyeed oo si maalinla ula kulanta tacadiyo uga yimaada bulshada Soomaalida. haddaba waxa uu rumaysan yahay ururka cadaaladda iyo sinaanta ee sime in la joogo waqti ummadda Soomaalidu si wada jira u cirib tiri lahayd dhaqankan foosho xun. si haddaba taa loo gaaro waxa muhiim ah inay iskaashadaan dawladaha iyo maamulada Soomaaliyeed oo dhan iskagana yimaadaan shirar arrintan looga hadlayo. war-saxaafadeedkan uu soo saaray ururka cadaaladda ee sime ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli wadamada ay Soomaalidu degto lagaga dhaqmo midab sooca ama midabta koorka. war-saxaafadeedkani ayaa waxa ku saxeexnaa gudoomiyaha ururka cadaaladda iyo sinaanta ee sime Cabdikariim Faarax Ibraahin.